maalin wanaagsan habeen wanaagsan marka hore waxaan kuugu salaamaa waqtiga halkan aad soo gashay aad daawanaysid haddii ay tahay habeen oo kuugu salaamaa haddii ay tahay maalin wanaagsan ayaan ku dhahaa dabcan maxaa ka og tahay dhibaatada ka dhex jirta isbitaalka masaarida ee ku yaala Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho ka hor inta aan dhibaatada isbitaalka gudaha u galin shaqaalihiisa iyo dhibaatada bulshada ay ku qabaanba marka hore waxaa idin sharaxi doonaa oo idin bari doonaa shakhsiyaadka isbitaalka maamula kuwa Soomaalida iyo milkiilayaasha isbitaalka masaarida ee ku yaala Soomaaliya milkiilaha guud ee isbitaalka waxaa lagu magacaabaa Caamir waa nin u dhashay dalka Masar si la mid ah Yaasir ayaa ah maamulaha isbitaalka Yaasir magaciisa saxda ma ahan sida qaar ka mid ah shaqaalaha isbitaalka aan ka soo xigtay balse magac kale ayuu leeyahay Yaasir waa magaciisa kaliya afgarashada qaybta maaliyadda waxaa fadhiya nin lagu magacaabo Maxamed Yaasir iyo Maxamed labaduba waxay u dhasheen dalka Masar Maxamed waa ninka maamula qaybta maaliyadda ee shaqaalaha Soomaalida dhibaato iyo bahdil ku haya waqtigan ilaa iyo bilowgii isbitaalkan sidoo kale waxaa jiro nin lagu magacaabo Xashiish oo ku nool waddanka Turkiga waxa uu dhashay isna dalka Masar waxa uu guud ahaan dhaqaalaha isbitaalka soo galay gabi ahaanba isagu yahay ninka maamulo afartooduba dalka Masar marna ma laga yaabo inay dib ugu laabtaan sababtoo ah dawladda Masar ayaaba baadigoob ugu jirta raadinta raggan inkastoo ay cabsi badan ka qabaan haddii ay ku laabtaan in dawladdu toos halkaas ay ugu xukumi doonto balse Soomaaliya ayaa u noqotay meel ganacsi ay ka samayn karaan ayna ku dhuuman karaan marka laga tago afartan nin waxaa jira nin Soomaaliya oo lagu magacaabo Xasan Cabdalla waa mukulaal madowga qarsoon ee Soomaaliya waqtigan gaar ahaan Muqdisho ugu howlgalo isbitaalka masaarida iyo shakhsiyaadka iska leh shaqaalihiisa waxay u yaqaanaan iyagoo cabsi badan dareemayo mukulaal madowga 2021 ka shaqeysta Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho afartaas waxay ahaayeen shakhsiyaadka iska leh iyo shakhsiyaadka maamulo mar kale intaan gudaha u galin dhibaatada ay bulshada ku qabto marka hore waxaan sharaxi doonaa dhibaatada ay ku qabaanba shaqaalaha isbitaalka guud ee masaarida waa shaqaalaha Soomaalida ee ka howlgala isbitaalka masaarida ee Muqdisho oo ka cabanaya mushaar la'aan iyo ku tagrifal awoodeed oo ka dhana shaqaalaha Soomaalida oo ay geysanayaan maamulka isbitaalka masaarida oo ah muwaadiniin u dhalatay dalka Masar hadda 3 bilood qayb ka mid ah shaqaalaha isbitaalka ma jirto shaqaale mushaar qaatay marka laga tago qaarkood iyaga naftirkooda hadda la soo dejiyay sharci ah in 3 meelba mushaarka qof walba uu lahaa in qayb ka mid ah laga jaran doono dhibaatooyinka laga diiwaangeliyay ee gudaha isbitaalka ee shaqaalaha la kulmeen waxaa ka mid ah sanad ka hor inay gabi ahaan ay sameeyeen dibadbax ka dhan ah mushaar la'aanta isbitaalka ku haysato aniga ay jeedin 7 sanadooda u shaqeynaya ilaa hadda wax xuquuq aan leenahay ma jirto mar walba waxa la isku dayaa shaqaalaha xuquuqda in lagu tunto xitaa bukaankii waxa la isku dayaa waxyaalaha dheeriga inuu soo iibsado waxaa jiro dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo sanadihii ugu dambeeyay ka shaqeynaya isbitaalka balse